jimcihii markii dhacdadu dhacday 25 bishan Agost markii dhacdadaas dhacday dadku waxa ku dhacay jahawareer wixii waayeen xogta rasmiga ah waxa ka jira gudaha Laascaanood agagaarkeeda waxa ka socda dagaalka Laascaanood ka socda waa dagaal la maalgeliyay ciidamada qaranka Soomaaliland oo qaar si xun loo laayay dhaawac la dilayo dhaawac lagu dul istaagay dhaawac la gowracayo dhaawac lagu shubayo muxuu ahaa in oran karayna waxa lagu shubayay saliid kulul ama daamir lagu dhalaalinayay dadkeena qabanaya oog u baxaya inaan siraha ciidanka iyo goobaha ciidanku ku sugan yihiin inaan sabr laga qaadin inaan muuqaaladooda la baahin inaan tirada ciidanka ku sugan aan muuqaal laga qaadin kulantaha bonda wadayaal ku soo dhawaada falanqeyn kooban oo aan ku eegi doono xaaladda guud ee dalka waa Soomaaliland iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo amniga ee dalka waxa falanqeyntan igala qayb galaya Axmed Xuseen Ibrahim oo ka falqooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida tageeska iyo caalamka marka hore Axmed baa ku soo dhaweynaya Honkebel TV Axmed Honkebel soo dhawow aad iyo aad baad walaal mahadsantiin muqbaaya Honkebel TV waana dhawahay walaal anaguna sidoo kale ku soo dhaweynaa bal ugu horreyn waxaan ku bilowna dhacdadii toddobaadkii hore ama bilowgii toddobaadkani ka dhacday Laascaanood ee ciidamada Soomaaliland iyo dhexmartay dagaalyahanada kooxaha ku sugan Laascaanood maxaa laga baran karaa saameynteeda bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland dal iyo dibadba meesha joogaan gaar ahaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee nafuuradayaasha ilaalinaya har yahmin buu taagan siday u ilaalin lahaayeen qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliland ee fronta u taagan ee inaga ilaalinaya ee sideen wax u baran lahayn u shaqaysan lahayn u tabcan lahayn har yahmin buu taagan u bareeraya nolol iyo geeriba labadaba geeya casharada walaal laga baran karayo dhacdadaasi waxay haayeen dhowr baan ku soo koobaya xaaladaha noocaas markay dhacaan oo iyadoo inkastoo wasaaradda gaashaandhigu inoo sheegtay inay ahayd xeelad dagaal ama استراتيجية لوجا تلنها إن عندما يدبرش سمايا مركز عندنا كانوا عاصي العان حد يوحيد لما يبى وين يتشلن مال إلى ورا كلا قاطو جمعية مركز العدد والعدد شان لا تنكي بشان أغاص مركز العدد العدد تذكر حكول عيش هورير وحوين الحكت رسمي جاء وحكتش له جودها لاسعانود أجار كده وحكى سعودة تقال الصبح حروب لا ما أفرتي إلا قال كده من الجاري وساردك عشان يقول حكسو سارسي dibudhaci ay soo ku dhacay hay'adaha dawladdu inay baahiyaan dhacdooyinka taagan taas waxay keentay in cid fara badan ay ka faa'iideystaan oo dana ay lahaayeen ay keenaan dad muslimiin oo quraanka waxa Ilaahay noogu sheegay dhacdooyinka noocaas markay dhacaan in dad badan ka faa'iideystaan oo quraanka waxa ku jirtay Ilaahay markuu leeyahay wada jaa'ahum amru min al-amn aw al-khawf adaa'u bihi markuu shay yimaado shaygaas oo saameyn ku leh amniga national security waxa loo yaqaan amniga dawladnimada iyo cabsi adaa'u biha bilahay dad waxa jira waxa ka shaqeysto munaafiqiin quraan ku yaqaano oo dhacdooyinku markay dhacaan boombooni ku sameeya ka faa'iideeya fiyu ku raadiya bulshooyinka ku kala dira dadka cabsi ku galiya baa jira marka dawladnimada waxa loo baahan yahay jirto wax loo yaqaano counter propaganda jirta waa in ay dawladdu leedahay qorshayaal iyo hindise ay u yaalaan dhacdooyin noocaas markuu dalku yimaado qorshihii lagu wajihi lahaa propaganda la faafinayo ummadana xaqiiqada loo soo tabi lahaa ugu yaraan 5 saacadood ilaa 6 saacadood dadku waxay laayeen meel ay xogta rasmiga ay ka helaan kana waxaan ku boorinayaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ahaato hay'adaas inay ahaato mid alerta oo feejigan dhacdooyinka noocaas markay nagu yimaadaan inay xaqiiqooyinka soo tabiyaan dacaayadaha laga faafinayo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in iyagu dhinac kale u dhigaan oo iyaga u haysta inay hay'adii mandate-ka wahayd weeyaan inahaasan leeyahay hadda wixii ka dambeeyana qaranku waxa ka diyaar garoobo okay Axmedow dagaalka ka dhacay Laascaanood yeereedid maxay tahay saameynta ka dhalan karta ee Soomaaliland iyo Geeska Afrika ku keeni karo kullay dagaalka weyn ogeeno dagaal waxa Soomaaliland la isku soo gaashaan booristay oo dad kala duwan oo ideolojiyad kala duwan afkaar kala duwan mabaadi' kala duwan mar afkaar diimeed baa dhex carareysay mar afkaar qabiil baa dhex carareysay mar afkaar gobol baa dhex carareysay mar waxa loo yaqaano proxy war oo Michael Rubin qoraaga reer Mareykan uu bixiyay ilaa 8 article buu ninka reer Mareykan ka qoray dhacdooyinka Laascaanood oo wiil dagaalka Laascaanood ka socda waa dagaal la maalgeliyay oo waxa loo yaqaan al-harb al-wakala buuri dawladaha ayaa soo maalgeliyay
oo waxay u celiyay qoraagaas u celinaya uu lahaa xiriirka Somaliland ay la sameysay Taiwan iyo Mareykanka ayaa waxaa yimid dowlado diidan Somaliland inay ku xirnaato Taiwan, dowlado diidan Somaliland inay galbeed u jeesato. taasa waxay keentay in harqaladeynta lagu keeno Somaliland iyo dagaalka. sidaa darteed waxaan u oran lahaa dagaalka halkaa ka dhacay iyadoo dhacdooyin aad iyo aad niyad jab ku ah dalka laga soo tabiyay ciidamada qaranka Somaliland oo qaar si xun loo laayay, dhaawac la dilayo, dhaawac lagu dul istaagay, dhaawac la gowracayo, dhaawac lagu shubayo muxuu ahaa in oran karayno waxa lagu shubayay saliid kulul ama daamir lagu dhalaalinayay maatidii ama shacabkii ama dadkii wax magaratada meelaha jooginta la soo kaxiyo la yiraahdo ku dul istaaga sabir waa dhacdooyinka waxaan oran karayaa taariikhda u galaya oo taariikh xun ku noqon doona. waxaan oran lahaa dowladda Somaliland dhacdooyinka noocaas ah hala record gareeyo, hala diiwaan geliyo hay'adaha xuquuqul insaanka ay ku horeyso commissionka UN to leedahay Commission of Human Rights kala yiraahdo, hay'adaha gobolka dhamaantood waa in recording inoo ahaada. dagaalka walaal halka ka socdaana haddii uu sii socdo wuxuu noqon doonaa dagaal faafa geeska oo dagaalku halka uu ku istaagi waayo iyagu ay ku wadaan waayo wuxuu ku istaagay bay noqonaysaa Somaliland xuduudeedii qayb badan ma ka maqan oo sidaynu ogsoonahay xuduudu sida ku cad ahdiga ay ku dhisan tahay ururka loo yaqaan midowga Afrika wuxuu charterskiisa waxa ka mid ah xuduudu waxay haaraysaa sidii uu gumaysigu kaga tagay qaaradda Afrika. haddii xadka la yiraahdo hal guuro hal badbedelo dhabaan qaaradda Afrika oo dhan waxaan ku dhici doonaa inay madax isla gasho. Somaliland wali xadkeedii rasmigeed may gaarin haddii aan qorshayaal la iman dadka colaadda ka abaabulaya ee doonaya shacabka laascaanood ku dhaqnaa oo jecel dowladnimada Somaliland iyo dowladda iska horkeynaya haddaan dadka laga dhex qaban wuxuu noqon doonaa dagaal colaad ku faafa wadamada geeska Afrika oo dhan. dhacdada dhacday iyo dagaalka Somaliland hadda maxaa la gudboon? Somaliland wala waxa horta la gudboon oo muhiim u ah kow Somaliland inay ogaato ilaha uu dagaalku kaga socdo oo ugu badan ilahaas ilaha warbaahinta qorshayaal la samaysto dadka YouTuberiska ama Facebookeriska ee colaadaha ka abaabulaya baraha bulshada in hay'adaha dawladda ee ku shaqada haddii hay'adaha warfaafinta tahay hadday tahay security agency-ga in qorshayaal yeesho horta hay'adaha dadka colaada faafinaya bartooda lagu tago qareena loo sameeyo lala dhiilgareeyo qaarkood barta ay joogaan dawladda sharci ay joogaan bartooda lagu dhiilgareeyo. laba waxa weeyaan waxa la gudboon inagu maanta dhexdeeni khilaafaad ka jiray hadda waa laga soo doogay oo waa laga soo baxay midnimo inaynu midnimadeena si laba laabno oo midnimadeena si laba jibaarno si aan daldaloolo iyo aan laga heli meelan laga soo dhici karayo haano hal qof oo hal meel wada socda. qodobka saddexaad ee la gudbo waxa weeyaan in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iskarab taagno hiil iyo hooba u muujino inaynu ciideena dhaqaalaha haysa ku bixin karaysaa ciidamada qaranka dhaqaalo ku bixiso oo ay taageerto iyadoo taasi jirto. qodobka kale aan ku daray waxa weeyaan oo muhiim ah iyadana meesha taalo waxa weeyaan dadkeena qabanaya oog u baxaya inaan siraha ciidanka iyo goobaha ciidanku ku sugan yihiin inaan sabr laga qaadin, inaan muuqaaladooda la baahin, inaan tirada ciidanka ku sugan aan muuqaal laga qaadin, inaan hubkooda la soo sawirin. taas waxay xog sii doontaa dadka huwanta ee Somaliland la dagaalamay waxay noqon doonaa source ama ilaha madaxa banaan ee xogta ka helaan. dadku way booqanayaan way tagayaan laakiin ha ka taxadiraan inay goobaha ciidanka ay sawiraan ka soo qaadaan. markaan kala imaano xaaladda iyo dhacdada jimcihii dhacday waxaa jirta khilaaf gudaha oo Somaliland arrimaha doorashooyinka ku saabsanaa heshiis baa imika u dhowdahay in laga gaadho guddibeeleedyaa soo saaray go'aamo xukuumaddu waa aqbashay xisbiyadu waa aqbaleen ururada qaar bay aqbaleen ma isleedahay halkaa khilaafkii doorashooyin ee muddada soo taxnaa waa ku soo idlaan karaa? hayo laba habeen ka hor guddidii isku xilqaantay ee ka soo jeeday deegaanka bariga Burco aad iyo aad bartaan halkaan lagu mahad celinaya waxay qaateen doorkii ay lahayd inay qaadato guurtidu oo hay'adii guurtida shaqadeedii bay ahayd inay dhexdhexaadin iyo nabadeen dadka ka dhex abuurto doorkeeda bay qaadatay. waxay qaateen doorkii hay'adaha caalamiga UN doorarka ay qaadan lahaayeen oo ah inay dad iskhilaafsan inay dhexdhexaadiyaan. waxaan aaminsanahay khilaafkii soo bilaabmay 2021 aakhirkiisii ilaa maanta laga joogo 2 sano wax yar la ama 2 sano u buuxsamayo
khilaafkii xagga ayuu kusoo gabagaboomay waana sababta keenaysay in damac dad fara badan ay soo damcaan Jamhuuriyadda Soomaaliland inay waxyeelaan waayo waxa la yiraahdaa dadkan siyaasadda daraaseeya xiriir baa ka dhaxay waxa loo yaqaan domestic politics siyaasadda arrimaha gudaha marka muran uu soo dhax galo waxay saameyn ku yeelatay siyaasadda arrimaha dibadda markaad midaysan tahay cadowga kuma soo hanqal taaqi karo oo uu ka cabsanaya waxa ajab badan oo hadda culumta casriga lagu daraaseeyo waxa loo yaqaan hegemony waxa la yiraahdaa oo loo yaqaan waa awoodid waxa la yiraahdaa waa haymanada ama waxa weeyaan waa capability-ga dawladnimada hadda la ogaaday laakiin quraanku wuxuu noo sheegay 1400 sano ka hor haddii ummaddu ay iskhilaafto inay saddex arrimood meesha ka baxayaan ilaahay quraanku wuxuu ku sheegay wuxuu yiri walaa tanaazicu fatafshalu watadhhab riixukum warhooy ummad yahay hay iskhilaafina haddaad khilaafku markuu yimaado khilaafku dhowr arrimood buu sabab kow khilaafku ma taagnaa dadku uu jaafaajir kuma taagnaade waa la isnacaa haddii la isnaco bulshada kala gooda dabeeto wuxuu soo istaagay stage-ka u dambeeyo ah dadku inay qor isku qaadaan isagoo ilaahay ka digay 1400 sano ku ilaahay hay iskhilaafina haddaad iskhilaaftaan fatafshalu waad fashilmaysaa banjar bayna ku dhacaya oo watadhhab riixukum riixada waxa quraanku inoo sheegay waa quwad hadda culumta casriga ee dawladnimo waxa la yiraahdaa waa hegemony waa awoodda dawladnimo riixukum baa meesha ka baxay awoodii dawladnimo meesha ka baxaysa oo cid walba way soo hanqal taagaysa bulshada markay iskhilaafto saddex baa waxa la yiraahdaa waxa ka baxaya isku duubnidii bulshada waxa ka baxaya waxa loo yaqaan economic capability waxa ka baxaya waxa loo yaqaan military capability khilaafku saddexdaas u saameeya bulshadii waa kala durugtaa dhaqaaluhu saameeya ciidanku saameeya 1400 sano ka hor bii ilaahay ummadda muslimiinta uga digay inay iskhilaafaan khilaafku toos buu waxa loo yaqaan waa indirect proportional si toos ah wuxuu saameeyaa dawladnimada sidaa darteed waxaan aaminsanahay khilaafkaasi hadda waa laga soo doogay waanu istaagay horta ururada waxaan u sheegayaa waxaad degantihiin ma deganid global kale ama adduunyo kale ma deganid waxaad ku nooshiin Soomaaliland wadciga iyo xaaladda hadda dalku taagan yahay waad ogtihiin xaaladda dalku taagan waxa taagay xaaladii defense time bala waxa xaaladii dalka la difaaci lahaa oo waxa lagu soo xadgudbay jiritaanka Soomaaliland state existence-kiba hadda calaamad saala saaro Soomaaliland jiritaankeeda waa weer lagu yahay hadda dood ay furi lahaayeen ma jirto qodobka labaad ku diray waxa weeyaan dadkii la dhexdhexaadinayay ee muranka khilaafku u dhaxeeyay ururadu kama mid ahayn oo dadkan loo yaqaano dadkan culumta daraaseeya waxa loo yaqaano conflict resolution ama waxa loo yaqaano xalinta khilaafaadka gudidii maanta berigi dhowtooleys xil qaamtay waxay qaadeen doorkii loo yaqaano arbitry baa laga yaqaan waxa la yiraahdaa waa koox ama dad isku xilqaamay laba kooxood ama laba qof oo is haya inay dhageystaan khilaafaadkooda markay dhageystaan cadeemahooda eegaan iyo go'aan ka gaadhaan gudidii is xilqaantay odayaasha labadii daraf ee dhexdhexaadinayay ururadu ku miitin stakeholder-kii khilaafku ka dhaxeeyay wuxuu ahaa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu ah labadaas la dhexdhexaadinayay waxaan leeyahay ururada siyaasiga waxaan leeyahay waxa tii Soomaaliland baa tihiin dadkayga baa tihiin laakiin hadda state-ka dawladnimadiiba waxay keentay oo dadku isku raaceen oo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu horeeyo xisbiyada mucaaradka ay ku xigaan dadkii stakeholder-ka ahaa shacabkii oo dhan ay soo dhaweeyeen in dalku hadda ay dantiisu ku jirto in la isla qaato in labada doorasho la isku sidko ururadan waxaan leeyahay iyagana xaqan fariin uga marinaya waa danta dadka laga mahare danta dadka raaca oo dadku halka u jeestay raaca hadii kale maanta cidna xulin ka qolweysay muujadahaas waaweyn ayay idu qaadan doontaan marka waxaan leeyahay waa inay iyagu maanta wax allaala wax iyaga uga banaan go'aanka inay qaataan mooyaane go'aanka inay ka soo noqdaan habeeratay xaq uga balaamin jiro xukuumadda waad sheegtay waxa la gudboon ururada iyo xisbiyadana waad sheegtay in hadaba shacabka marka xaaladda lagu jiro maxaa la gudbanayaa shacabka waxa la gudboon inaynu horta muujino midnimada dhexdeena inaynu iska saarno inaynu iska la gurno oo aynu reer isku qaybino oo inaynu jilba isku qaybino dadka Soomaaliland ku soo duulay wayna qayminayaan reeraha qaar ba waxay leeyihiin annaga waa nasteex reeraha qaar kood waxay leeyihiin hal la dilo reeraha qaar kood waxay leeyihiin say inoo kala saaraan oo inoo qaybiyaan haddii maxaabiista ka qabataan sii daaya reeraha qaar kood waxay leeyihiin haddaad maxaabiista ka qabataan ka dila sidaa darteed waxa la doonayaa inagoo ah well organized inagoo si fiican u abaabulan si fiican meel wada socona shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay midnimadeenu iyo jiritaankeenu waxay ku jirtaa inaynu hal meel wada socono hal meel wada dhaqaaqo iyagana fariintaas soo marinaya fariinta u dambaysa waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dalkan tacab badan buu galiyay intii halgan dheer buu madaxweynuhu soo maray haddii noqoto halgankii ay loo soo galay dawladda hore ee kalitalgiska ahayd haddii noqoto halganadii dambe waxaan aaminsanahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta haddaan xaaladaha maanta taagan dalka aanu madaxweyne ka ahaadeen
in hargeysa maanta jiritaankeeda la isku qabsan lahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku mahadsan yahay wuxuu dhisay ciidanka ugu adkaa wadamada ciidamada geeska Afrika wuxuu uu tayay ciidankii uu ka sii diyaar garoobay waxaad moodeysay qof inuu sii eegay mustaqbalka uu sii daraasay Ilaahay baa mustaqbalka oge xaaladaha noocan maanta hadii aanu hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi aanu dalka madaxweyne ka ahayn maanta Soomaaliland meel kale ayaa laga eegi lahaa baan oranay aad u maasanta inuu hagaag daawadayaal inta waxaan kusoo gabagabeynaa falanqayntaas si kooban ay ku eegnay xaaladaha dalka ee dhinaca doorashooyinka amniga iyo xaaladda guud ee Soomaaliland waxaana igala qayb galay Axmed Xuseen Ibrahim oo alaabo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida geeska Afrika iyo caalamka intaynu falanqaynta la mid ku kulmayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.